ku soo dhawow xogo laga yaabo in aadan hore u maqal. haddii aad isku daydid in aad daawatid dhammaan muuqaalada ku jira YouTube waxay kugu qaadanaysaa 1000 sano iyo 1000 sano oo kale maadaama lagu soo darayo muuqaalo cusub intii aad daawanaysay kuwii hore. luuqadda ugu dadka badan ma ahan English haddii aad u maleynaysay, waa luuqadda Mandarin ee lagaga hadlo dalka China, waxaana ku hadla in ka badan 1 bilyan oo qof oo ku kala nool daafaha dunida. rikoorka ugu dheer ee uu qof hingooday waxa haysta nin lagu magacaabo Charles Osborne, wuxuuna xaaladan la noolaa 69 sano oo xiriir ah. waddanka ugu badan ee ay baaskiilo yaaliin waa China, laakiin magaalada ay dadkeedu ugu isticmaalka badan yihiin baaskiilada waa Copenhagen oo ku taala Denmark. xayawaanka loo yaqaano gariga wuxuu leeyahay carab saa'id u dheer, wuxuu awoodaa inuu carabkiisa ku nadiifiyo dhagihiisa. shimbirta loo yaqaan hummingbird wuxuu wadnaheedu garaacmaa celcelis ahaan 1200 oo jeer daqiiqadii. 86% dadka qaangaarka ah ee ku nool caalamka waa kuwo wax akhrin kara. waa guul weyn markii loo fiiriyo qarniyo hore. ma ogtahay markii aad diyaarad saaran tahay awoodda dhadhanka iyo urka waxay hoos u dhacdaa 20 ilaa 50%. waa sababta ay cunooyinka diyaaradaha aysan dhadhan fiican u lahayn. lo'da waa xayawaan saa'id u jecel saaxiibtinimada, waxayna mar walba jeceshahay in ay isla joogto, mana jecla in ay kali u daaqdo. waxaa laga yaabaa in aadan ogeyn, laakiin anaa kuu sheegaya hadeer. indhaha ariga waa kuwo u samaysan qaab leydi ah, waana noolaha kaliya ee ishiisu qaabkaas u samaysan tahay. kabaha cirbaha dhaadheer waxaa waagii hore xiran jiray ragga. masaaridii hore marka ay xoolaha qalayaan waxay xiran jireen kaba cirba dhaadheer si ay iskaga ilaaliyaan dhiigga dhulka yaala, waxaana mar walba xiran jiray kuwa ka shaqeeya xoolo qalowga. haddii aad tahay qof sigaar cabba oo aan iska dayn karin dhibtu adiga maahan, ee waa maskaxdaada oo mar walba soo sii deynaysa hormoonka loo yaqaano dopamine, kaasoo ah hormoonka farxadda. mar walba oo aad u baahatid sigaar waxaad dareemaysaa in haddii aad heshid aad farxaysid oo kale. ma ogtahay in Facebook uu noqon karo waddan maadaama ay ku xiran yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof? mase ogtahay in aasaasaha Facebook uusan arki karin kalarada cagaarka iyo guduudka, waana sababta uu uga dhigay astaanta shirkadda mid buluug ah. waa inoo qaybta saddexaad.